barashaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa gudaha magaalada Cergaab ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka taagan gobolka Sanaag isagoona baaq u diray xukuumadda hay'adaha samafalka iyo cid kasta oo gacan ka geysanaysa taakulaynta dadka ee abaaru halakayeen kuwaas oo la ildaran biyo la'aan waxaanu yiri maanta waxaanu shirkan jiraad u qabtay hawl adag oo abaareed oo ka taagan gobolka runtii gobolku abaartiisu maaha mid daaq xoolo waxay cunaan way haystaan laakiin waa mid biyaa oo waliba xagga banaanada u badan buura waxoogaa waa laga helaa durdurreeyo waxaankaas banaankiisa haddii aan ilaahay aan raxmaadkiisa soo daldajin ilaahay baan raxmad weydiisanaynaa ama aan gurmad degdeg oo biyaa la gaarin khatar badan bay dadkaas iyo xoolahooda ku sugan yihiin ceelka ugu weyn ee laga cabi jiray daraad ayuu istaagay 7 subaxnimo dareer weyn oo ahaa ilaa 10,000 oo neef oo geel aad u taagnaa gurmad kasta waanu sameynay ilaa waxaanu isku daynay mishiino ceelal yaalay oo aan shaqaynay aanu qaadno oo geyno wax biyo dareer qeyr mooyeen waxba uu ka soo saari waayay intaas waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah nugulkii way ku baqtiyeen sidii dameeraha kale iyo dhibaatada saalka ka taagan dhanka bargalbeed oo dhan ee wadada galbeed ka xiga way la qabaan xaggan hawdku waa la mid degmada Cergaab iyo degmada Ceelfuinba gurmad degdeg oo biyaa bay u baahan yihiin meel halis ay la maraysaa ilaahay raxmaadkiisa aanu filaynaa inuu dhawaana siiyo inta ka horeysase waxaanu u baahannahay xukuumad ahaan shacab ahaan hay'adahan in gurmad degdeg dadkeena la soo gaaro sidoo kale barashaabku hadalkiisa si wata ayaa ka hadlay hay'adda WFP oo ka joojisay caawimooyin ay siin jirtay dadkii ay abaaruhu ku halakaysmeen ee ku dhaqnaa gobolka Sanaag Maxamed waxa inta ka sii daran nin baa yiri baa ooyaa weylay ugu joogsaday iyadoo dadkiiba sidaas tabcaanka isaga yahay oo biilaanta iyo abaarta iyo odololkaas uu ku jiro ayaa hay'adda WFP tiri dadkiiba raashinka waanu ka jiro qola asas ma soo sameeyso waa laga joojiyay dadka raashinka iyo saxmad kale iyo buuq bay sameeyso waxaan hay'adda ka codsanaynaa bal arintaas in dib loogu noqdo waxaan ka rajaynayaa bal arintaa cid kasta waxa ka timaadee in dib loo eego waxa meeshan yaaliyo waxa qodada kormeerkii in la ay ku egtaan oo garan maynee ee leeyahay asas ma bay soo sameeyay arintaas waa arin yana khatarteeda leh hay'adda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa bal hay'addan inay xiriir la sameeyso oo hawshaas in gurmad degdeg laga galmo iminka wax joojina ma baanaan filaynin midaan fadhiin bay ahayd Maxamed Axmed Caalim Timbaro barashaabka gobolka Sanaag ayaa sheegay in haatan ay meel wanaagsan marayso soo afjarida xalka nabadeed ee degmada Ceelfuin xaaladda nabadgelyadu meel wanaagsan bay maraysaa wax dhibaato imika ka taagan ma jiraan arintii Ceelfuin waanu shiray odayaashii iyo cuqaashii waanu kula kulannay odayaashii iyo cuqaashii waxaanu ku heshiinay war waqtigan waa waqti kaliila neefka geelan laga soo kaxay kaala kaayna wala la dhib mudanaya xaaladu sida ay tahay haddana maadaama ay odayaashii salaadiintii aan ku balanay inay isniinta soo baxaan waxaan ilaa bisha kowdeeda bal anagu aanu xoolo ururinta gallo waana kala shaqo tageen guddidana waxa filaya bisha kowdeeda inay la joogi doonto waxa ka dhibaato naga ogaan ma jiraan arintaasuna si dhaqso ah hadii la ilaa nooga dhamaanaysa ugu dambeyntiina barashaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa ka hadlay ciidamada Soomaaliland oo dhawaanadanba ku sugnaa deegaanada bariga gobolka Sanaag halkaas oo barashaabku sheegay inaan wax rabshad aan xilligan ka taagnayn xaaladan dadka qaar ka qaliyaan ciidamada bari tagay dadku ciidamada wadankoodii bay tageen wax dhibaatana dadka deegaanka iyagana ma dhex taagna ninaan badbad ka soo hadlaya ama meel kale ka soo hadlayana موقفك dadka iyo ciidankooda mid waxba kama bedeli karo ciidanku waa ciidankoodii dalkuna waa dalkoodii dadku waa dadkoodii wax mushkilado dhex taagan ma jirto iyana waxaan leeyahay dadka meelaha ka hadlayo raalli iska ahaada waxa ka faa'iideysataan halkan ma yaalaan barkhad maxamuud geedi bulsha TV wararka gobolka Sanaag